Assalaamu calaykum. Taariikhda buuggeeda kuma ay qormin magaalo ka qurux badan Baabila. Maqlidda magaceeda waxaa kuu sawirmaya hanti iyo dhaqaale badan. Kaydadkeeda dahabka iyo jawharta ahaa aad ba ay cajiib u ahaayeen. Inta badan marka ay dadku maqlaan Baabila waxaa u sawirmaa magaalo dhul qurxoon ku taalla, jeexooyin iyo webiyo ku dhex taalla, leh buuro macdani ka buuxdo. Sidaas ma aysan ahayn. Waxa ay ku ag taallay webiga Furaat, dooxo dhul bannaana oo siman, meel aan jeexooyin iyo buuro macdaneed midna lahayn, xataa ma lahayn dhagaxaan wax lagu dhisto, xataa kuma aysan oolin waddooyinka socdaalka ganacsigu ay maraan, roobabkuna ciriiri ayaa ay ku ahaayeen beeraha. Baabila waxa ay tusaale kan u sarreeya u tahay halka ay dadku gaadhi karayaan marka ay adeegsadaan awooddooda. Wax walba oo magaaladaas dhaqaale u keenay waxa ay ahayd waxa ay dadku ay samaysteen. Hantida taale oo dhan dadka ayaa abuurtay. Baabila 2 ilo dhaqaale oo keliya ayaa ay lahayd, dhul beereed iyo webiga Furaat. Farsamada ugu weyn ee ay reer Baabila hindiseen waxa ay ahayd inay biyo-xidheenno u samaysteen webiga Furaat, kadibna ay u soo leexiyeen dhulka beerashada ku habboonaa. Dooxooyinkaas banka ahaa ayaa la soo dhex mariyey biyahaas ilaa beeraha la soo gaarsiiyey. Taas ayaa noqotay farsamooyinkii ugu horreeyey ee ay dadku ku kacaan, kuwii ugu heerka sarreeyey. Nasiib wanaag inta ay Baabili jirtay oo dhan waxa u talinayay boqorro ay dhif ay ku ahayd in lagu soo duulo ama la qabsado. Walow ay dagaallo badan gashay, haddana waxa ay u badnaayeen kuwo dhexdooda ah ama kuwo iska caabin weerarro dibadda ay ka keenayeen boqorro doonayay dhicidda hantida Baabila. Boqorrada Baabila waxaa keenayay inay raagaan waxa ay ahayd murti, isku duubni iyo sinaan ay ku dadaali jireen. Baabila marnaba ma yeelan keligood taliyayaal isla weyn, kuwaasoo doonaya inay dhulal kala qabsadaan iyaguna ay taliyaan. Walow aysan ahayn magaalo weli jirta, balse markii dambe ee la waayey dadkii awoodda iyo dhiiranaantu ay ku jirtay ee magaalada dhisay ama ilaalinayay, kumanaan gu kadib magaaladaasi waa ay baaba'day. Waxa aanay noqotay meel laga guuray. Dhul ahaan waxa ay ku taallay qaaradda Aasiya, meel 6,000 kiiloomitir kaga beegan kanaalka Suways ama waqooyiga gacanka Iiraan. Dhiga ahaan 30 ayaa ay ka sarreysaa dhulbaraha. Waxa aanay isku diilin ku yaalaan magaalada Yuma, Arizona ee Maraykanka. Cimilo ahaan waa sida magaalada Yuma oo kale, waa kulaylo dhul qallalan ah. Maanta dooxadii Furaat ee lamadegaanka wada ahayd, mar labaad ayaa ay ku noqotay lamadegaankii boorka iyo ciiddu ay qarisay. Caws dhifdhifa iyo geedo gaagaaba ayaa u halgama inay ku noolaadaan oo aysan dabayshu la tegin. Dhulbeereedyadii, magaalooyinkii waaweynaa, ganacsiyadii iskaga gooshi jiray, giddigood waa ay dhammaadeen. Reer miyi Carbeed oo teendhooyin ku nool, xoolo yarna dhaqda, ayaa maanta dhulka laga heli karayaa. Calaamado iyo waxyaalo dooxooyinka lamadegaanka noqday lagu arki jiray ayaa dadka socdaalka ahi weligood aysan tixgelin siinin. Ugu dambayntii, sooyaal baarayaasha archaeologists ayaa indhahooda u furay markii ay arkeen jabab weelal dhoobo ah oo ka haray iyo dhagaxaan qoraaleedyo dhaqmay. Sahmin ay maalgeliyeen reer galbeed ayaa loo diray inay qufaan oo la arko waxa ay ka helaan. Majarafado iyo garweyno ayaa bannaanka soo dhigay magaalooyinkii dhulkaas ee hore. Xabaashii ama aaskii magaalooyinka ayaa loogu yeeri karayaa lamadegaankaas. Baabila ayaa ka mid noqotay magaalooyinkaas. Wax ka badan 20 qarni ayaa ay dabaylaha lamadegaanku aasayeen, guryaha oo dhammaan dhoobo ka wada samaysnaa darteed. Dhoobadaasi waa ay burburtay mar kale, ayaa aana dib ugu noqotay boorkeedii iyo ciiddii. Sidaas ayaana maanta ay tahay Baabili, magaaladii hantida ee adduunku. Saynisyahano badan ayaa rumaysan in Baabila iyo magaalooyinkii kale ee dooxada webiga Furaat ay yihiin kuwa ugu faca weyn inta xogtooda la hayo. Sooyaalka la qoro ayaa waxaa lagu sheegaa in magaalooyinkaasi ay jireen ilaa 8,000 oo sanno ka hor. Waxa la yaab ah sida lagu ogaaday sooyaalka magaalooyinkaasi ay jireen. Dhagax qoraaleed ayaa la helay faahfaahinaya dayax-madoobaad xilliyadaas dhacay. Haddii xiddiga-yaqaanadu ay dib u raaceen oo ay qiyaaseen xilliga dayax-madoobaad faahfaahintaas leh uu dhacay, waxa ay sheegeen in ilaa 8,000 ay ku beegan tahay. Qaabkaas ayaa lagu ogaaday in 8,000 oo sanno ka hor Sumeeriyaantii degganaa Baabila ay ku noolaayeen magaalo derbi lagu wareejiyey. Dadkaasi dhammaantood ma ahayn dad aan waxba aqoon oo derbiyadaas ku dhex nool, balse waxaa la sheegaa inay ahaayeen dad aqoon leh oo maskax furan. Waxaa la sheegaa inay ahaayeen injineeradii ugu horreeyey, xiddigayahanadii,
xisaabyahanadii, dhaqaalayahanadii ugu horreeyey iyo weliba dadkii ugu horreeyey afkooda qoraal u sameeyey. Waxaa in badan laga sheekeeyaa sida biyo loogu soo leexiyey lamadegaankaas oo loogu beddelay beero baaxad weyn. Walow ay ciidi qarisay, haddana raad ka haray kanaaladaas ayaa weli sii muuqda. Kanaaladaas weynidooda waxaa la sheegaa in qaarkood marka ay biyuhu ka dhammaadaan, haddii farda lagu dhex cayriyo ay ku daali jireen waxay fogaan ka qabaan. Herodotos, socdaalihii iyo taariikhyaankii Giriigga, ayaa booqday Baabila xilliyadii ay ugu fiicnayd oo inooga sheekaynaya. Qoraalladiisa ayaa uu kaga sheekaynayaa muuqaalada magaalada oo aad loogu bogo iyo dhaqamo gooni ah oo ay lahaayeen. Waxa uu sheegaa inuu arkay dhul aad ugu wanaagsan waxbeerashada iyo badar cayn kasta oo ka baxa inuu arkay. Jiritaanka Baabila waa tirtirmay, balse murtidii ka hartay ayaa inoo joogta. Waagaas xaashi weli lama hindisin. Dhoobo 4 geesi loo sameeyey oo qoyan ayaa wax lagu dul qori jiray, kadibna waa la dubi jiray dhoobadaas. Kadibna waxa ay noqon jirtay dhagax aad u adag oo kale oo ay adag tahay siduu ku jabo. Qaar ayaa dadka dhagax dhaba qori jiray ilaa uu qoraalku ka muuqdo. Dhagaxaantaas taaka ilaa dhowr taaka ayaa uu dhererkeygu leekaa, ballac ahaanna 4 xubineed. Dhagax qoraaleedyadaas ayaa wax qoridda loo adeegsan jiray. Xog kasta ha ahaato, magacyada madaxda, taariikhaha, gabayada, heshiisyada iibka, xeerarka, hanti lahaanshaha, amaahyada iyo xataa fariimaha meelaha fog loo dirayo ayaa lagu qori jiray. Waxyaalaha aadka loola yaabo ee Baabila lagu arkay waxaa ka mid ahaa dayrkii magaalada ku hareeraysnaa ee aadka u qarada weynaa. Dadkii hore dayrkaas iyo ahraamta Masarba waxa ay ku dari jireen 7 la yaab ee adduunka xilliga ugu waaweynaa. Boqoraddii Samiire la odhan jiray ayaa la sheegaa inay bilowday derbigii ugu horreeyey ee magaalada. Waxaa la xaqiijiyey inay dharar ahaan leekaayeen 160 taako oo maanta u dhigma dabaqyada 15 fooqa. Boqor kasta oo awood badnaa ayaa derbiyadaas ciidan kula wareegay, balse geli waayey. Kuwo badan ayaa dul fadhiistay oo godoomiyey Baabila, balse mar kasta ku guuldarraysanayay. Reer Baabila farshaxanka aad ayaa ay ugu dheereeyeen. Kuwa dhagaxaanta qora, sawirayaal, dhar sameeyayaal, kuwa dahabka iibiya, kuwa hubka sameeya iyo kuwa beeraley ah intaba waa ay ku jireen. Xilli hore oo dadka intooda badani dhagax wax ku ugaarsan jireen iyo waramo dhir ka samaysan, ayaa reer Baabila adeegsan jireen faashash ama gudimo iyo fallaaro biro ka samaysan. Reer Baabila waxay ahaayeen dhaqaalayahano iyo ganacsadayaal. Inta la og yahay iyaga ayaa ugu horreeyey dad lacag adeegsada. Baabila weligeed ma soo caga dhiganin ciidan qalaad ilaa iyo 2500 oo sano ka hor. Sida ay Baabili ku baabaaday waa arrin la yaab leh. Siiras oo ahaa boqorradii xilligaa kuwii ugu awoodda badnaa ayaa soo weeraray Baabila. La taliyayaashii boqorkii Baabila ee Nabonidas ayaa waxa ay kula taliyeen inuu ciidan kala hortago, bannaankana ugu baxo oo aan u ogolaanin in magaaladiisa la godoomiyo. Labadii ciidan haddii ay dagaalameen, ciidankii reer Baabila waa la jebiyey. Siiras ayaana Baabila sidaa kula wareegay isagoo aan cidina iska celin karin. Intaas wixii ka dambeeyey, awooddii iyo sharaftii magaaladu tartiib tartiib ayaa ay u baabaaday. Ilaa muddo 100 sano gudaheeda ayaa ay ugu dambayntii noqotay mid la cidleeyey, laga guuray, loo daayay in dabaylaha iyo ciidda lamadegaanku ay ku celiso bannaankii ay ahayd markii hore. Baabila sidaas ayaa ay ku duntay, weligeed dambana ma soo noqonayso, balse ilbaxnimada maanta abaal weyn ayaa loogu hayaa inay horseeday. Halkaas ayaa uu inoogu egyahay barnaamijkii aan ka soo diyaarinay buugga ninkii Baabili ugu hantida badnaa ee uu turjumay Dr. Jaamac Sahal. Wassalaamu